بسم الله الرحمن الرحيم. walaalayaal magacayga waa mar labaad waa maxamed saalax. waxaa jira barnaamijyo aan u bixiyo wacyi loo macno leeyahay. macno waxa weeye waqtiga la joogo, macno waxa weeye awareness ama isbaraarujin. waxaan ugu talagalay waalidka Soomaaliyeed oo aan aqoon-yahankooda yahay, oo aan walaalkooda ahay, oo aan adeerkooda ahay, oo aan abtigooda ahay, oo aan awowahooda ahay. waa dhici kartaa inay jiraan 100 professor iyo PhD holders, waa dhici karaan dad badan oo iga aqoon badan, laakiin ma rabo inaan ku hadlayo qof kale. waxaan rabaa qaybteeda inaan ka qaato arrintaas. dadka dhegaysan doona cajaladahaygana oo ay ugu horeeyaan aqoon-yahanada iyo weliba aabbayaasha, waxaan rabaa inay qaybtooda ka qaataan. waxaan rabaa inaa idhaahdo dumarka Soomaalida ilaa xataa Soomaaliya waa la sheegay, shaqadooda way qabsadeen. ilaahay barakeeyo. aqoon-yahanay soo saareen, dad bay soo saareen. waa in lala soo saaro inta dhiman, intay soo saareenna nala sii wado si ay insha allah khaatimadooda aakhiro iyo adduun ilaa khayr u khatimo. toobigii horaan sheegay inaan soo bandhigi doono, laakiin toobig kala maanta iga soo dhex galay oo aan horey igu jirin timetableka. toobigaasu wuxuu ka yimi su'aalo hadda taagan waqtiga aan joogno oo barnaamijyo aan ka qayb galay aad laysu weydiiyey oo waalidka ku haya werwer badan. laakiin haddii waalidku more information ay helaan, relief ay dareemi karaan, xalna loo heli karo. arrintaas maxay tahay? Soomaalida waxay isticmaashaa ereyada badanaa arrintaa waxaa laga cawanayaa waa wixii 13 ka hooseeya. ereyada erebixinta waalidka Soomaalidu ay isticmaalaanna waxaa ka mid ah khalkhaali, dhega adeyg, iskoolkii canugii waa cayaar, galaaskii waa khashaadaya. soo maxaa dhacaya? macallimiinta qolbay ku xirayaan. arrintaa kalsooni daray keenaysaa. waalidkii baa la soo wacayaa. mar kastoo la soo waco waalidkii naxdin iyo werwer baa ku abuurmaya. gurigii inuu markuu yimaadana wuxuu leeyahay shaqadii qaban maayo. wuxuu rabaa inuu geeb iska ciyaar, wuxuu rabo sameeyo. arrintaa waalidkii werwer badan bay ku noqotay. werwer badan bay ku noqotay. canugaan korsaday oo anigu aan dhalay oo iskoolka geeyey oo macallinka haysta oo wax kasta haysta, muxuu saa u yeelaya? carruurta facis lagama dacwoodo. carruurta facis waalidkood waa maqlaan. qaar waalidkii waxay leeyihiin dhiikar baan lagu dhici rabaa. qaar waxay leeyihiin arrintaa darteed dhakhaatiir baan galnay. qaar waxaa dhici kartaa gurigi inuu ku barbaro odagii habartii la isku qabto arrintaas. waxaa la yidhaahdaa dhibaatada haddaad 100% focus saarto aa ku mashquusho. arrintaa waxaa leedahay qofka ayaa caafimaadaan dhibo kasta. waa run, dib way jiraysaa. you have to recognize waa run, laakiin maaha inaad 100% dhibtaa ku mashquusho. waxaa laga sheekeeyaa nebi muuse calayhi salaam markuu reer bani Israa'iil kaxeeyey oo badda ku xirantay oo dadkii u wada cabsadeen oo yidhi baddii waa tan, ciidamadii fircoonna waa kuwaan. muxuu yidhi? ilaahay buu focus ka saaray oo tala saartay. halkaa waxaan ka faa'iidaynaa ha isku mashquulinina cunuga yarkaa dhashay oo attention seeker-ka ah. ha isku mashquulin. take easy, still young, oo soo koraya. laakiin hadduu ogaado ilmahaagu inaad la xanaaqayso, in muudkaagu bedel maayo, inaadan seexanhayn because of waxay samaynayaan, inaad kiniin cunayso, waa kugu cayaarayaan. hadda idin sheegaan. so marka xanaaq waa loo qoslaa.
saxda marka dad badan oo expert yaa dhegeysan doona cajiladan oo weliba arrimaha ka shaqeeya anigu I want to start waa bilaabaya kubadda adiga xirfad badan baa laga rabaa mustaqbalka inay kasii hadlaan waxyaabaha lagu taliyey waxaa ka mid ah kow waalidow adigu wax kasta ma tiid adigu dhakhtar ma tiid adigu expert ma tiid inaga Soomaali baan ka nimid waxyaabo badan oo carruurta ku dhaca oo xanuuna ah oo qarsoon oo low ability qosaysa oo wax kale ma naqaano waxaan rabnaa canuga inuu noqdo mid kalaan ku ilaahay kan ka weyn baa saasa waxaan rabnaa inuu noqdo 100% soo wada tan noqon kari ka waran marka haddii learning difficult oo qabo ka waran hadduu hyper qabo waxyaabo kale oo ka waran haddii raashinka siiso uu fisk drink iyo muxuu ahaayay aad orange muxuu ahaay sokor soo siiso ka waran haddii iskuulka la bulin garay ka waran haddii waxbarashadu ku adagtay ka waran haddii vitamin D iyadu ku jirkiin ka waran haddii habeenkii aanu si fiican u seexan ka waran hadduu wax xanuunsan yahay ka waran waxaas mu diino meesha u noqon waayay ii kan bigurida leedahay so kow waxaa la yidhahdaa what if haddii gaarigaaga maanta uu shaaga kaa banjiro maxaa samaynaysaa ma oynaysa waa in plan B waa inaan haystaa oo ah hadduu gaariga beri iga banjiro maxaa dhici kara shaqan oo ku socdaa marka waa inaan shaaga dambe ku xirta ama haddii kale aan ku talagalo laakiin haddaan anigu hal balaan baan wataa bis hal cunug baan rabaa inaan korsado wax kasta ku fiican baan wataa haddii kale waa xanuunsanayaa jason well anymore ma shaqaynayso easy waxaa la yidhahdaa belo hadday ku asiibto positive baa lagu soo dhaweeyaa allah will sort out haddii kale diikar la isku ridaysaa waxba kama qaban karto adigu laakiin maxaa aqal baa loo baahan yahay information baa loo baahan yahay maxaa sameeya ogtiin waalidow guriga hadduu ka aloo biyo soo daadsho maxaa samaysaa makinina cuntaan mise waxaa wacdaan shirkadda guriga lahayd waxaa jira boqolaalkii arrimood oo keeni kara ilmaha la sheegay inuu saa u dhaqmo way jirtaa hadhiin you don't know anta you don't know why you don't know that you don't know maxaa samaynaa marka waxaas oo dhan la sheegay iskuolkii buu readingki diiday waxbarashadii baa ku adkaatay hyper active weeye wuu ordayaa inuu khalkhaali baan idhahnaa waxaa la yidhaha waa energetic way cunugay waa energy badan yaha lagu bedelaa eri kastoo negative horta inaan bedelo number 1 waxaad dhici karta cunugaaga inuu wax badan ku fiican yahay inuu baari ku yahay inuu guri ka caawiyo inuu quraan ku fiican yahay laakiin haddii iskuolka isku dhacaan that's not the end of the world adduunkii ma dhamaan waxaan marka samaynaynaa inaga baan paranoid baan waxa ka qabnaa ilmahayga ma rabo in iskuolka ogaado oo ma rabo inaan sheego inuu khalkhaali yahay inuu koobka jibsho inuu carruurta yarkaa dilo ma rabo in laga qaataan ka cabsanaya way laga qaadanaya way kan jirno dhakhtarka u geysi ba laga qaato cabsidaan inaga yaa ina baray cabsidaan yaa ina baray inaga cunugeygii lama hadli karo telefishinka dabi ma oran karo dowladda firdham siisay dowladdaas firdham siisay ilmahaga ilaahitiin mas-uuladaa ka ah hadduu weakness kaa dareemo ku dhamaata kacay waddamadan kuma hayn kartid waa u shaqaysataa adaa dhalay adaa mas-uulka ah yaa u cabsanaysaa adiga muslimaad tahay maba inaan ka fikirin ma cunugaaga inaad dulmido maba ka fikirinnaba mas-uuliyad waay waalidnimo ayaa ku dheero jacayla waa ognahay sax marka waalidu ha isku wareerin cunug attention sii karaa cunug iskuolka fani samaynaya cunug carruurta ka qoslisiiya cunug laga rabay inuu grade inuu level 5 yahay oo 3 ah ka warin macallimiinta waxaad leedahay dhegeyso macalliminuhu ilmaha waxaa rabaa please assessment lagu sameeyo gurigana waa asaas halkaana waa ujeedaan aniga xal maayo si kasta waa yeelay motivation waa u sameeyey reward waa siiyey waa la hadlay hadduu ilaawaya yeah that's a good idea form bay kaa buuxinayaan ana saxiix authorization
authorization inaad tirahdo okay innaga iska dhaaf inaad taas keenne marka la soo ogaado ilmuhu inuu caawinaad u baahan yahay oo warqadaas si cararayna waxaan leenahay maya qaar baa guura soomaaliya oo carara waxaa la yidhi ilmahaygii special social maaha wax laga hadlayo shaqo kumari social assessment baa la samaynaya waa la qiimeynaya iskuulada qayb baa la shaqaysa dhakhaatiirta qayb baa qaabilsan ilmaha waxaa lasoo heli doonaa sababta keenta waxaas marka lasoo ogaado labay noqonaysaa in la yidhaahdo is okay ilmaha waa iska waa carruurnima haysa you'll be okay she'll be okay ama in la yidhaahdo ilmahaasi medication bay u baahan yihiin ko labo iskoolkana guide baa la siinaya saa ula shaqeeya adiga lagu soo wixi maanta ka baxay wareerkii loo baaraa ay waa la ogaaday sabab baa keentay ilaa dhakhtar markii maxaa loo soo wacayaa adiga bacay tartiib baa loo dejinayaa shaqo yar baa loo dhiibayaa wuxuu qaban karaa loo dhiibayaa niyaddaa loo dhisayaa waxaa argi doonta cunugoo leeyaha dhowr wiil ka bacday is okay good report well done then waxaa laga yaabaa muddo markuu soo korana inuu caqligiisto ficnaado arrinta horta waa intaas arrintaas sidadaba waa intaas arrinta ku saabsan carruurta khalkhaaliga u bixiseen oo laga qaylinayo iskoolada ayaa dowladdu lacag ku siisaa iskoolada ayaa hawshaa qaabilsan iskoolada ayaa la rabaa hawshaas inay muxuu ahaye cunugaas resources waan haystaan expertise bay haystaan bes adiga waxaa laga rabaa iskoolka inaad ku caawinto inaad u sheegto informationka ilmahaaga woriga ka qabto haddaa ka qariso iskoolkuna wuu wareeraya adna waa wareeraysaa iskoolku wuxuu qaadanayaa cunug nootiyo kiil badan adiguna waxaa ka rabtaa in noqoninka ugu fiican iskeen mayso marka quraankaa ka mid a marxamaddaa ka mid a haddii waxbarashada ku adkaato cunug iyaan lagu maagin low ability inaa dhici karta waxbarashada ku adagtaa dhici karta in ku filan baa loo dhigaya welibana xataa haddii iskoolka la yidhaahdo lasoo ogaado marxamaddana waa in loo sheego tuushinka waa in loo sheego waxaa loo diraya waa inay tahay wax awooddiisa ah haddii kale inagu qofka waxaan saarayna waxaan awoodin taa waa taas arrinta kale oo waalidku ay naga weydiiyaan waxaa ka mid ah cunugayga waxbarashada uu ku fiicnaa markuu yarsiga soo gaaro wuxuu bilaabay inuu demotivated noqdo waxbarashadii noco waa in la weydiiyaa se wax dhehen ilmihii waa in la weydiiyo se waxu dhehen maxaa dhacay waxbarashada waa ku fiicnay ta kale laakiin waxaan hal mar ma dhacan seedaba adduunka waxaa la yihahda waxaa soo ogaaday shaygu hal mar ma dhaco waa wax process socdo waay ina waxaa laga yaabaa 6 bilood ka hor 3 bilood ka hor 2 bilood ka hor inuu soo bilaabo arrintan ma inuu shalay akrin jiray saacado badan oo hadda maanta macquul ma noqoto waxbaa soo tartara marka waalidku waxaa rabaa inay ilmaha la socdaan xaaladdu maraayo markaas ogaan kartaa waayo ilmaha marka lala hadlo ilaa waa ilmaha ku adkaaday ibsaadi ku adkaadeen waa lagu caawinaya gurigii macallin baa lagu qabanayaa iskuulkii miyaan morally diinta laga xumeeyey ama carruurku qosleen ama macallimiintu what happened ilmihii kalsoonida waa in loo soceliyaa ilmihii maxaa nidhi kalsoonidiisa waa in loo soceliyaa taas waa mid waxaa kaloo ka mid waxyaabaha waalidku ay weydiinayaan ilmihii isagoo og su-aasha jawaabteedii gacan taagi maayo you know why kalsooni darra haysta waxay ka cararayaan inaan qaldanaan ka cabsanaynaa waxaa la yidhaahdaa ilmaha dagaalka ku kora canaanta ku kora difaac buu bartaa ilmaha mataqaan ku kora kalsooni darraa ku dhacdaa ilmaha violence ku kora dagaal buu bartaa waxaa la yidhaahdaa ilmaha aabihiis hooyadiis hortiisa uu kula dhaqmo dhaqan xun isna xaaskiisa kula dhaqmaa saa daraaddeed ilmaheenna wax badan oo ay bannaanka markay joogaan ay muujinayaan oo ka mida caadifadahooda emotional intelligence waxa la yidhaahdo garaadka qalbiga waxay ka imanaysaa guriga kalsoonida ay ku haystaan farxadda ay ku haystaan wadahadalka ay ku haystaan let them go wrong
waxaa la yidhahdaa carruurta waa carruur u ogolow inay qaldamaan adoo kale maaha let them go wrong 10 saalood loo dhiibo 9 qaldan koob baa ka jabaya laakiin inaga dhib bayna haysta haddaan Soomaali nahay wala dadkeena waalidiinta waxaan rabnaa gurigeena inaan koob ka jabin waxaan rabnaa ilmuhu inaanu waxba akhrin waxaan rabnaa iskoolkeenu buntida ugu fiican keeno waxaan rabnaa wax kasta inuu number 1 noqdo war ilmaha way ma yaro حتى واحد هذا المو عرورته انت كيرين 18 years كيرين بس كحضر قيبتي ايموشنال قلبي قودن قيبتي ايموشنال كشقيسه just funny enjoy كما فكروا انه واحد قفكم مركو 19 قالوا كفكرها عواقبته على اوه ما حد يكرا دان ساس يلو كفكرها they do what they see they do what they feel لكن محل ربع أظن لا صعته كوتش في عن نقطه لكن هذه روح على هم بالجارة فالي بالجارة دخن بالجارة تعدي بالجارة حلال عنيد بالجارة أقوم بيسي بالجارة الليست وحاكلوا الجارة إنه أحكبر نوالده how to be good parent سيلو نقطة والد في عن سيلو نقطة والد مسلم سيلو نقطة هو يفي عن سيلو نقطة هو مسلم والد كورسيقات هديك لو حلب نقريسا قفك البابور كفرال تعانت لغا ساري ريد ويال ليسنا أوضن ولغا ما دقاجريسو ما نستكنا حلو ساري آخر واحد عيكرت إنقاري ولغا لجيدته أما أتصاوتك هرجينا إن شاء الله كليب كان إنه واحد بدن كان في الدونه والد بدن وركايو دخن كعروته يرير هاول ورمين قلنا كنا كشيء عيد معناه يقول له هي ويدية كوا قرنايا هذا كوا ما قرنايسو صاحب أنا هويدين قف كله هويدين أهلنا هويدين تبع إلهي وعبري كاس حقي جوجان إسكول هذا حقي جوجان إسبتال هذا لكن مركو هذه نفس كون نقطة الله هذا شو إسكول ريبتان وارون أبيس الله هذا هورير الله هذا شو إيه الله هذا شو ولا كيس الله هذا حواك لو ركسد حواك كم سنة markii wax fiican sameeyaana riwoorsiye anigu markii iskoolka riboor fiican ka yimaado yararka riwoorsiye wiigiiniyada casho fiican u sameeya waxa guriga ay ka sameeyaan ku amaana carruurtu ayaabay raadinayaan baa dhahdaa waxay raadinayaan adiga tikala marka qado waxa carruurtu markuu ku khashaadayo borderline buu raadinaya wuxuu raadinayaa meesha kama dambaystay adigu waa no buu raadinayaa laakiin hadda noo tiraado oo hadhow yes tiraado oo iska calacasho oo aad muujiso inaadan caawinad haysan cunugaaga fani buu kaa dhiganaya intentionkiina waa fiican yahay inagoo dhan weeghaan cajiladan iyo waxyaabaha kale soo wadno iyo inta kale ku dari doonaan dadka Soomaalida iyo inta idinku awoodaan insha Allah ujeedada guud waxa weeye inaan isku dardarno oo insha Allah soo saarno dad Soomaali ah oo muslim ah wixii tara oo inaga waxna tara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحق الله تعالى مسؤول السلام عليكم